waxaa maanta soo gaaray magaalo madaxda gobolka Awdal ee Boorama wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami waxaan wax ka weydiinay bal ujeedada booqashada wafdigaasi wasiirada. bismillaahir rahmaanir rahiim badi wa salaamayhay waxa ujeedada aan u nimiday tahay si aan horeba ugu iban jiray وطبعا بوغشو ددكي iyo deegaankaba oo ugu horeysay la yimaado waxa ku xiga hawlo nabadeed oo taagan ahayd qoladii argaba wixii hore u dhamaan way taagan baan u bixinaa taagamadii markaa taagnaa oo aan ognahay inay meel fiican hadda joogaan in dibadda loo aaso nabadii oo doorkii ay dawladdu lahayd waxa weeye beel way qaban karaan waa la isku bixi karaa isku kara waa dhici karaa laakiin waxa soo dhaw waxa ka asaliya inaan nabadgelyo xumo imanin oo deegaamada ku imanin kuma iman jirino dhulka ugu nabad waqtigeed ugu nabad dheeraa bay ahaayeen gobolada galbeedku oo lagu faanayay هذا لو حنو تعلينا وحبيت كبدلنا لا يسدودي. مثل معمود ببوقشة مقالة. بوقشة ما هذا وقتي كان متشرو مرة دي لقلو كل ما يلقلو هذا بنت هوسنا وقول ما تبين ما وحاي إن نقوم قالين إنه وفتي كلا وسير راودين كده بين ما نجوا إنتنا إذا كل كين. محمود حاشي عبدي أو وزيره فايسقولنا كده بين ما إلى قلبتنا خديرين